kayga abagidita waa wacayo taleefanada dhan balooga iga saareen ninkaana liiguna coli leeyahay ninkaan baan duuga intaa qabtitaana soo wacanin aabood waa xanuunsan yahay mar dhaw buro leeqale buradaasaa leeqale ma awoodno maanta wallaahi saasay tahay ma fadhiyo subaxda soo baxo maqribkii oo imaada ninkii waa sida asagana waa xanuunsan yahay anigii waan xanuunsanahay maanta waxaan soo dhex fadhiistay ummadda Nabi Maxamed ilmihii sidaana iiga baahan yihiin bagooda dhulka ugu haayaan walaalayaalo hooyana faraqayga idin horsada ummadda Nabi Maxamed maanta caawiya adika idin hortaagan adika walaalahay adika ayay idin maanta faraqa idin horsada caawiya haddii aad muslim dhab ah tahay oo waliba taqwo leh muuqaalkan share garay si aan uga falcelino dhaqanka lidka ku ah diinteena islaamka ah haddii aad muslim ahayn muuqaalkan waxba ha ku sameyn ilaahay waxaan ka codsanayaa qof walbo dulmigan ka soo horjeesta oo muuqaalkan share gareeya si ummadda uga baraarugto ilaahay qofkaas u gargaar wax walbo jecel yahay nasiib dadka Soomaaliyeed gaar ahaan waalidiinta Soomaaliyeed kaarka muslimnimada waxay isticmaalaan kaliya markuu qof ajnabi ah ku soo biiro tusaale hadda gabdhahan inta idin kaga muuqdo waa Soomaali kulligooda waxa ay la joogaan waa Afrikaan qaarkoodna gaala ah qaarna sheeganaya inay muslim yihiin waalidiinta gabdhahan dhalay qabiilka ma fiirinayaan oo ma fiirinayaan jareer waaye heblow waa ma dhahayaan wixii kulay muslim ee keensatay nin muslim beeno keensatay laakiin ninka Soomaaliga jareerka ah ama qabiilada kale oo Soomaalida la yaso markii ay gabadhooda keensato ee rabta inay guursato nin ah markaas bay waxay leeyihiin reer hebel waa isma guursan ama gabadhii goynayaan sida maamadan oo kale hadda maamadan wiil Soomaaliyeed oo islaam ah oo la yaqaanaaba qababo jareer ba ha ahaadee ilaah baa ka dhigo u dooray haddana saasay tahay familkeeda ayagaa gooyay war aniga fiiri runtii igu imaa qabiil wax la dhaw ma aqaan ani runta hadda igu nacaysid rabbigayga igu jecel adigana hadday cunsurinimo qalbigaaga ku jirto islaamnimadaada dhab ahayn waa ka xanaaqi kartaa muuqaalkaana iska indhatiro oo dulmiga dadka ku taageer aday ku taala ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku leeyahay quraankiisa falamma nasuu ma dukiru bih reer bani israa'iil markii waanadii loo diray ee ilaabeen anjayna alladina yanhawna an suu boda kuwa dulmiga iyo xumaanta reebi jiray buu ilaahay u gargaaray oo badbaadiyay aniga ina badbaadara waa dulmi dad aniga kuma taageeray wa akhadna alladina zalamu bi'adabin ba'isin bima kanu yafsuqun kuwa wax dulmiyay ee waliba xumaanta iyo dhibaatada haayay buu ilaahay subxaanahu wa ta'ala cadaab daran taabsiyay adigana hadaarta cadaabtaas inay ku taabato iska indhatir qabyaaladan iyo cunsurinimada Soomaalida ka dhex jirta laakiin ajnabi iyo jareer markay imaadaan oo farcooda iyo firkooda gaala ay yihiin markaas waxaa la leeyahay muslim bay keensatay islaamnimadan kaarkeeda aad isticmaalaydaan markii ajnabi yimaado maxay tahay war islaamnimada ma ahan kaliya inaad afka ka sheegataan ee islaamnimada waa taqwo ay u baahan tahay taqwadana waxay ku jirtaa cadaalad ilaahay subxaanahu wa ta'ala quraankiisa wuxuu ku leeyahay wala yajrimannakum shana'anu qawmin ala an ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa war ilaahay wuxuu ku leeyahay naceeb aad u qabtaan qoom ama qabiil kala darteeda cadaaladda ha uga tagina maxaa yeelay cadaaladda ayaa u dhow taqwada macnaha calalka cabsiga taqwada lagu sheegay islaamnimada lagu sheegay waa taqwada lagu sheegayna waxay agtaalaa cadaaladda kan Soomaaliga ah muslimnimadiisa waa iska indhatiraysa oo qabiilka kaliya kala weyn oo reer hebel waa glaangab waa kan waa jareer waa inta ka dhac baa leedahay kan ajnabi markuu imaadan gabadhaada ka soo doonto nin muslim ah bay keensatay leedahay maxay aabe cadaaladda nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri qabyaalada waa qurun buu yiri adigana haddii wax yar ee qalbigaaga qabyaalad ku jirto qurun iyo wasakh baa qalbigaaga ka buuxdo muuqaalkan share garay haddaada maamadan wax u awoodin dhaqaale aadan waxba ku caabin karinna muuqaalkan share garay at least cunsurinimada aan ka tirtirno dalkeena iyo dadkeena iyo diinteena waliba lid bay ku tahay diinta islaamka dhaqanka Soomaalida hadda ka dhex jira ee qabyaalada jaahilnimadaas dhex dabaalnayna markaas rabnaa horumar inaan gaarno dulmiga aan walaalkeena ama qofka kale muslimka aan ku hayno darteeda Soomaali horumar ma gaaraysaa ku dhahay waxba ha iska indhatirin hadalkayga jeclaw ama aday ku taala aniga rabbigayga aniga aan ku raali gelinayo hadalkan haddii aad adigana tahay qof rabbigiisa raali gelinayo muuqaalkan ka falceliyo oo maamadaasna aan garab istaagno lambarkeeda meeshaas uu ku qoran yahay. Assalaamu calaykum.